Ma ogtahay sirta ku jirto in la soo kaco aroornimo? Ina aadan dhammaantood way baahan yihiin. Qof baa weli guursanin wuxuu rajeynayaa inuu guursado gabar wanaagsan oo saalixad ah. Gabar baa jirta oo weli guursanin waxay rajeynaysaa inay guursato nin wanaagsan. Sidee ku keentay marka adigoo baahi fara badan qabto inaad weli jiifto? Haddaa baahi aad qabto, baahidaada Ilaahay subxaanahu wa tacaala u bandhigo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax kuu qaban kara. Bini'aadam waxba kuma qaban karo. Bini'aadamka waxaa laga yaabaa hal jeer mise laba jeer inaad wax aad weydiiso, markii saddexaad aad ku celiso inuu wax kaa sheego ayaa laga yaabaa oo kuu dhahaa qofkan wax weydiis badanaa, qofkan markastoo ayuu waxna weydiiyaa. Balse Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu farxayaa markii aad gacmaha kor u taagto, aad barido, aad u oyso, aad dhahdo yaa casiiz yaa jabbaar. waxaa ku qanacdaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan inuu asaga ku keenay, asaga ku irsaaqaya, asaga unbaa ku maamulaya. Ragga maxaa u diiday inay mashaajidka aadaan? waxaa arkaysaa xilliga salaad subaxii hal saf ayaa arkaysaa. runtii aad baa ugu murugoonaysaa markaa aragto muslimiinta inay ku badan yihiin wadanka. mashaajidka markaad tagta xilliga salaad subaxii aad arkayso hal saf. halkii safna ma aha dhalinyaro, ma aha waa odayaal. balse maalinta jimcada mashaajidka aad buu u buuxaa, waxaana ka buuxaa dhalinyaradii ayaa ka buuxda. waa su'aal isweydiiya, xilliga salaad subaxii maxaa u diiday dhalinyarada inay safka hore soo buuxiyaan? waxaa laga yaabaa inuu 9 saac u jiiftay. qofka 9 saac jiiftana ma laga yaabo inuu u kaco salaad subaxa. gabadha muslimadaheed iyadana waxaa laga yaabaa in hurdada ay ku dahdo ee salaad subax ay tukato 2 saac iyadoo loo bani inay guriga ku tukato. waxaa ku fikirtaa adduunka intaad joogto inaad sahay fara badan aad ka qaadato si aakhir ah oo faa'iidaysato sahaydii aad shaqaysatay xilliga adduunka aad joogtay.